ilaahay baa mahadleh ilaahay baynu uga mahadnaqaynaa nimcooyin badanna siiyey oo ay ka mid tahay horumarkan ka socda berbera gaar ahaan dekedda waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dowladda imaaraadka carabta oo ku dhiiraday inay maalgeliyaan Soomaaliland oo cadowgeeda badan in badan u sheegay inay tahay meel aan ammaan ahayn ama aan lagu aamini karin ama aan la aqoonsanayn waxaan ugu mahadnaqayaa dowladda imaaraadka carabta oo ilaa jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa ay ka dacweeyeen dadkii markaa maalinta xamar maamulayay maxaad u maalgelinaysaan berbera waxa ilaahay mahadiya maanta inuu mashruucii ballaarinta dekeddu gebageba yahay waxaan u sheegayaa raggii markaa xamar talada hayey ee dagaalka intaa alle ku jiray iyo kuwii ka dambeeyey ee hadda joogay ee dagaalkaa ku ka badan galay horta waxaan u sheegayaa maanta berbera horumarkeedu iyo nimankaa ina caawiyey ee dhaqaalaha intaa laga geliyo waxa weeye waa horumar Soomaaliland ay gaadhay iyo shacbigeedu horumarka Soomaaliland gaadhayna waa mid caalamka oo dhan u dana oo caalamka meeshii horumar loo sameeyaba bini'aadmi oo dhan baa ka faa'iideysta oo waa lagu farxaa waa horumar u soo kordhay geeska Afrika waa horumar u soo kordhay inta af Soomaaliya ku hadasha oo adkad Soomaaliland leedahay ay walaalo yihiin laba dawlad hala kala ahaado saddex dawlad hala kala ahaado laakiin mid dawlad dal ka xigta dekedaha kale oo dhan oo Turkiga uga baahanay oo aan ka baqanay oo ay say doonaan u adeegsan karaan waxaan dekeddu u adeegaysaa dhammaan geeska Afrika oo dhan ilaa Afrika gudaheeda ayaynu adeegaynaa marka waxaan kala saarayaa shacbiga Soomaali meel uu ku nool yahayba inay tahay dekedoodii oo ka adeegsan karaan oo toolba ka xigta oo toolba uga dhow waxaan u sheegayaa dadka talada hayay maanta dalka Soomaaliya iyaguna tashan kari waayay tana la dagaalamaya inay maangaabnimo u ahayd wuxuu soo kordhayay geeska Afrika iyo Soomaaliya waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa maamulka halkan ninkan muxuu ahaayeen DB wali u jooga sida dhaqsaha leh ee waqtigii aanay mid marnaba uga daahin iyo tayada fiican ay fuliyeen aad iyo aad baan raalli uga nahay kambariga DB World sida iyo waqtiga uu shaqeeyay aad iyo aad baan uga mahadnaqay shacabka Soomaaliland waxa la gudboon maanta oo Soomaaliland meel walba fariinteeda gaarsiinaya horumarku wuxuu ka yimaadaa marka aad tahay qof la fiisa daryeelaya ifi akhridsada qof wal oo u yimaadana si walaaltinimo ula nool oo ay wax islaafsan karaan oo ay wada shaqaysan karaan marka waxaan leeyahay waa inaynu noqonnaa dad ilbaxa ummadda ilaahay bini'aadmi oo dhan la shaqaysan karta markaas baan horumar gaari karnaa 4 milyan baynu nahay aqoon badan mari dhaqaalaheenu waa wax yar xaaje hebel baa lacag leh marka waxa adduunka leeyahay waxa ma hayno waxaan u baahanahay adduunka inaynu aqoonta iyo dhaqaalahaba ka soo jiidano oo aan ku korro oo dalkeena hore u marino kaliya isma anfaxina taana waxaanu ka markaa inaguna walaalowno gacmaha is qabsano ummadda kale la dhaqano fariinteedu waa inta shaqaalaha dekedda waxaan leeyahay soo canba u shaqayseen farsamo yaqaanada iyo kuwa kale ka shaqeeyaba sii kordhiya dadaalkiina oo halganka intiina ka gala oo haddaad maalin wax aqoonsataha qayrin dalbaad dhisaysaa maantana Soomaaliland meesha ugu shaqo fiican ee ugu wanaagsan waa dekedda berbera marka waa inay sii horumariyaan oo iyagu tusaale u noqdaan hadday wax aqoonsanaana sida caalamka ilbaxa u dacwada maanta mustaqbal baad leedahay caafimaad baad leedahay bashan baad leedahay mushaaraha taqaanaa shaqaalaha ugu badan baa jooga marka waxaa idinka doonayaa idinkuna inaad dadaashaan oo dekedda horumarkeeda ka shaqaysaan oo aydaan ka fikiraan anuu maxaan helaa dekeddu maxay yeeshaan